بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan dunida daafeeda khaasatan shacabka geeska Afrika qowmiyadda aan madaxda u ahay halkan barnaamijka caawa waxa weeye waa barnaamijkeena siyaasadda geeska Afrika barnaamijka caawa iyo geeska Afrika waxaad ka dhageysanaysaan channelka geeska Afrika shacabka geeska Afrika TV ama Habil Cabdi Haybe labadaba waad ka dhageysan kartaan Facebook iyo YouTube caawa barnaamijkeenu wuxuu daaran yahay oo la soo gabagabeynayaa barnaamijkii dowladdu ay laascaanood ku timi xukuumadda Soomaaliya sidaan ka wada warqabno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay la socdaan wasiiro ka kala kooban laba beelood beesha daarood ee isagu ka socday oo ay ka socdeen wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir bidhaan xaashi iyo bidhaan iyo xildhibaano iyo taliyaha booliiska iyo wasiiro ay hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka dastuurka iyo cadaaladda I think inuu yahay xasan macalin faarax cabdulqaadir wasiirka waxbarashada ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo alcadaala ah intaasina beesha hawiye ka socdeen waxaa noo muuqata in uu yahay gentleman agreement barnaamijkii berigii carta laga soo yegleelay ee labada beelood ay xilalka ku qaybsadeen waddankana ku qaybsadeen oo mas-uuliyadda dalkana ay ku qaybsadeen weli in dabada la hayo waxaana noo muuqda markaa in barnaamijku boqolkiiba 80 uu yahay barnaamij laba beelood ku midaysan yihiin laakiin qaab dowladeed loo dhigayo waxaa weeye ra-iisul wasaaraha Soomaaliya markuu hadlayay kelmadaha uu xalay yimi waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarayaal iyo madaxweyneyaal ku aftirsada beeshayda isagoo laascaanood jooga oo inagu wada matala dowladnimada ayaa waraaqa intay qoreen jeexjeexay laakiin anigoo beeshii daarood magaceeda ku hadlaya waraaqdaydii maan jeexjeexinaya wasiir hawiyaan u dhiibay oo ku dhawaaqay hadaya hadalku siduu u dhacay waa hadalka waa sidaas macnihii labadan isbahaysiga samaystay ee Soomaaliya halkaa dhigay waxaa ka go-an in Somaliland awrtiin 35 sano dowladnimo iyo awood military iyo wax walba iyo siyaasad iyo caalamka xiriir la leh oo dowladaha dariska ah xiriido ku leh oo Itoobiya dalka jooga ee dowladda hadda haysta alliance la ah inay dumiyaan baa ka go-an iska dhaafadu dil koonfureed iyo dadkii kale Soomaalida ah kale ee dulmana waa alliance laba qabiil ka kooban oo dowladnimadii Soomaaliyeed afduubay barnaamijkaas oo ku baysgaraysnaa qaab qabiil dad badan baa laga yaabaa inay la yaabaan oo weliba reer Sool u badan inay barnaamijka markaa ka hadlaya la yaabaan qabaa'ilka aan carabaabayo wax la qariyo oo meeshaan muuqda ma jiro waa la baneeyay wax walba qabiil si cad oo cadcadeeya baa loo sameeyay barnaamijka markaa caawa iyo geeska Afrika siyaasadda geeska Afrika haddii aan laascaanood iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wafdigiisii aan idiin kala qeexo wafdigu wuxuu ka koobnaa group ra'iisul wasaaraha aftarsiintiisa ah oo daarood oo isagu hogaaminayay oo wasiiro iyo isugu jira xildhibaano oo gabdho iyo wiilalba leh iyo group uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo isaguna hogaaminaya cadaala oo wasiirka warfaafinta ah faarax cabdulqaadir xasan macalin oo isaguna wasiir ah adigu dhowr wasiir oo beesha hawiye ka kooban iyo xildhibaano iyo wariyayaal
Somali National TV iyo ka socdo website-yo aad loo daawado oo iyagu voluntarily raalli ku ah in Somaliland qabiil ahaan loo kala qaybiyo iyadoo loo adeegsanayo nidaamka dowliga ah. taas weeye maamul dowladeed oo aan qabiil u kala qaybsanayn ayaa Puntland ka jira. maamulka nimanka madaxda ah boqolkiiba 90 ha noqdeen arti ha noqdeen, laakiin dir iyo hawiye iyo sheeqaal iyo reero badan oo kale oo Soomaaliyeed oo Madhibaan iyo Gabooye ka mid yahay ayaa dhulka ku nool wayna wada matalaan lama kala qaybin. hadda fiiri, haddii la yidhaahdo reer walba maamul ha samaysto Puntland bay feeras saameyn ku yeelanaysaa. anigu mana la jecli arrintaa, mana soo jeedinay because hadda iyagu raalli kuma aha waxaa socda, iyagaa lasoo weeraray. galmudug waa la mid, ninkan fiqiga meesha ordaya ee marna madaxweynaha u sharaxnaa maamul goboleedka galmudug dee surre iyo reero direed baa dhulka ku nool oo reero aan daaro hawiye ahayn baa ku nool. haddii aad tiraahdo markaa beelaha wax loo kala qaybinaya dhulka sectarian baa loo qaybinaya, dee inta dirku degan yihiin ee badda xigto oo dhan ee tawfiiq baa raacinaynaa, dowlad goboleed guuniya u samaynayna. marka qabaa'il baa loo kala qaybin. sharcigani waa inuu ama maamuladoo dhan saameeyaa ama waa in hadda la joojiyaa. qaabka ay u dhacayso waa taas. marka wasiiradan iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynihii iyo hadalkiisii aan aragnay markaan isu keennay, horta waxaa noo muuqata dowladda federaalka Soomaaliya inay duulaan ku ahayd Puntland oo ay rabto shirka wadatashiga qaran iyo doorashada ay iyagu wataan inay dhaqan geliyaan. oo shirka wadatashiga qaran hadday diidaan, maamul goboleedka Puntland hadday diidaan inay shirka ka soo qayb galaan oo doorashada diidaan, in la yidhaahdo waxaa idin matala Laascaanood gobolka Sool baa dadka jooga idin matala, halkaasay doorashadiini ka dhacaysaa oo codadka halkaa la geeyey. Kismaayona in iyagana saasoo kale lagu sameeyo oo loo diido in aanay magaalada Kismaayo doorasho hadday diidaan inay qabtaan, in iyagana magaalo kale oo maaragtay in lagu qabto deegaan doorashadooda. marka horta labadaa duulaan baa lagu yahay. duulaanka saddexaadna waa Somaliland oo iyadu dagaal sokeeyay inta laga dhex riday, haddana hawl ka weyn lagu wado. marka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre horta siyaasadda Soomaaliya wuu ku fashilmay. isagoo hadda wuxuu isleeyahay nafis siyaasadeed baa heshay, laakiin qaab beelaysan oo reereyd baa iminka ay wixii oo dhan u muuqdaan. waxaan meesha maraya beelaha kale ka soo jeeda dee laba beelood baa meesha maraya, hal nin baa la socda. dadkii xildhibaanada markaa fiiriyey, hal nin oo booraba ka soo jeedo oo wasiir soo maray oo wasiir nuur cilmi la yidhaahdo ama cilmi nuur, oo isaga iyo rag kaloo ka mid ah aada moodo colaad qabiil inay Hargeysa u hayaan, ayaa la socda wax programkaas ku jira oo ka soo jeeda beelaha direed ama booraba ka soo jeeda. ra-iisul wasaaruhu xalayto wuxuu ku dhawaaqay in Khaatumo ay heli doonto waxa maamul goboleedyada helaan. taa waxaa hore u yidhi Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaa hore u yidhi Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa hore u yidhi Farmaajo, waxaa hore u yidhi ra-iisul wasaareyaal uu ka mid yahay Cabdiweli Sheekh Nuur oo Cabdiweli Sheekh Samdig oo ra-iisul wasaarihii xirna aan idhaahde, midkoodna ma fulinin, iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. kulligood allaahuma Cabdiweli gaasun baa ka soo horjeestay oo si cad isagu yidhi Khaatumo Puntland bay ka tirsan tahay. sidaa daraaddeed hadalka ah Khaatumo waxay helaysaa waxa maamul goboleedyada helaan ma aha aqoonsi. waxaan kaloo aqoonsi ahayn shirka ka dhacaya wadatashiga qaran ee ka dhacaya Muqdisho in lagu casumo
SSC Khaatumo maamulka la baxay shirkaas waxaa ka soo qaybgalaya siyaasiyiin aan xilal haynin oo ururada bulshada ka soo qaybgalaya beelaha madaxdooda ka soo qaybgalaya aniga ka qaybgalaya oo lagu qasumay oo lagu marti qaaday oo ay soo direen dowladda federaalka Soomaaliya in aan uga soo qaybgalo maadaama aan hogaamiye ahay oo ummadda direed oo dhan cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed hal door u ah baa shirka lagu casumay sidaa daraadeed wax macnaha weyn oo aqoonsi ah ma tilmaamayso in la yiraahdo shirkaas lagu casumay waxa la rabo waxa weeye wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha inay digreetooyin documented ah saxiixaan in maamul goboleed loo aqoonsaday maamul goboleedka shuruudihiisiina sharciga Soomaaliya la waafajiyo oo ah shuruudaha ku qoran waa in laba gobol iyo wixii ka badan ay full in control yihiin waa in beelaha labada gobol iyo wixii ka badan dega oo dhan ay ka mid yihiin maamulka oo ay qaybsadaan xilalka dowladda sida xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka sida galmudug oo kale micnaheedu waxa weeye laascaanood hal beel baa hadda wax walba iyadu isku koobtay gobolka Sool dhowr iyo 10 magaalo ku yaala 3 magaalo ay haystaan oo magaalo weyn oo laascaanood iyo 2 magaalo yar yar oo tuulooyin hadda laakiin degmooyin xisaabsan oo xudun iyo Taleex oo dad yar ku nool yihiin waxaa maqan 2 magaalo waaweyn oo laascaanood u dhigmo Og iyo Caynabo waxaa maqan gobolka Saraar oo dhan la baxay hadda oo Saraar loo yaqaano oo dhowr iyo 10 magaalo ku yaalaan waxaa maqan waayo gobolka Sool wuxuu ka soo bilaabmaa Yoocada Nugaal ilaa lagu gaadho meesha ay maabka ku kulmaan waqooyi galbeed Sanaag iyo Togdheer Sool 40 mayl buu jiraa gobolka Sool 40 kilomitir buu jiraa Karin meesha la yiraahdo Karinna waa badda meesha ay Sool iyo Sanaag ku kulmaan marka 40 mayl ba gobolka Sool u jiraa inta u dhaxaysa Karin meel 40 kilomitir u jirta ilaa gobolka Nugaal oo Garowe dusheeda ah waxaa ku yaala wiiraan 28 magaalo midna degmo lagama dhigin labada degme midna ay tahay Caynabo midna Og tahay labadaas iyo inta magaalo u dhaxaysa ka soo bilow Caynabo ilaa aad ka gaadho meel 40 kilomitir u jirta Karin oo badda ah intaas oo Sool ah wixii degmo ku yaalay wixii deegaan ku yaalay kama mid aha Somaliland bay la socdaan oo waxaa degan isaaq baa degan gobolkii Sool markaa ma haysato waxaa soo haray meesha cayn loo bixiyay hadda xuduudkii ku taala waa Buuhoodle waxaa la darisa Buuhoodle Qorilugud oo u muuqata Buuhoodle Qorilugud waxaa degan Soolomadu waa habar jeclaa Somaliland bay ka tirsan tahay xuduudkii ku taala Buuhoodle marka waa hal magaalo oo Buuhoodle ah iyo 3 magaalo oo Sool ah ma intaasa maamul goboleed markaa noqonayo lagu aqoonsanaya ilaa waxa la rabaa waa inayna noqonin waxaanina qabiil noqonin waa inay haadaan maamul goboleedku waa inuu 2 gobol oo dadka ku nool oo dhan ay ka kooban yihiin gobolka Sool iyo gobolka Sanaag oo caasimadiisu Ceergaabo tahay labada midna ma u dhamaystirna caynta ay sheegayaan Togdheer bay ka tirsan tahay oo waa Buuhoodle Somaliland waxay leedahay anagay naga tirsan tahay halkaa waxaa muuqda markaa maamul goboleedka SSC Khaatumo la baxay inuusan shuruudihii sharciga ah ee Soomaaliya buuxinin qabaa'ilkii meesha wada deganaana ayna ku midaysnayn sidaa daraadeed looma soo qaadan karo tusaale galmudug oo kale because galmudug dir iyo hawiye iyo daarood iyo gabooye oo beesha shanaad matalaya iyo digili mirflow business ku degay intaba shantaba iyagoo degan baa 4 beelood waaweynaa meesha deegaanka u ahaa oo gabooyo ku jiro ayaa waxay heshiis ku yihiin inay hal maamul noqdaan sidaa daraadeed hal gobol xitaa hadday noqdaan imika waaba 2 gobol hal gobol xitaa hadday noqdaan waa hal gobol iyo ka badan
oo dadkii wada deganaa raalli isaga yahay inay hal dowlad noqdaan oo wax qaybsadeen ilaa ay qaabkaas u fakiraan sool iyo sanaag nimanka wada xildhibaanada Soomaaliya ka ah ee wasiirada ka ah ee ra'iisul wasaaruhu ku jiro ilaa qaabkaas wax loo waafajiyo siyaasadda loo waafajiyo oo la isu keeno dhulbaahante iyo habar yooris iyo habar jeclo iyo warsageli iyo gabooye iyo faqashin oo intaas wax qaybsadaan maamul goboleedkaasi ma buuxinin shuruudihii taasi waa sharciga Soomaaliya marka la eego sharciga guud ee federaalka marka la eegana Somaliland wuxuu u aqoonsan yahay maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan haddii markaa sharciga Soomaaliya federaalka ah maamul Soomaaliya ka tirsan oo maamul goboleed loo aqoonsan yahay laakiin isagu ku dhawaaqay inuu madax bannaan yahay haddii la rabo in la kala gooyo waa in uu ku yimaadaa nidaam federaalka oo dhan iyo dadkii ku matalayay dhinacyadoo dhan ay raalli isaga wada yihiin taana lama hayo sidaa daraaddeed waa sharci darro in laascaanood maamul goboleed loo aqoonsado anugu qabiil ahaan ugama soo horjeedo waxa aan meesha ka hadlaynaa waa sharci Soomaaliya u qoran oo ah inay badna leedahay xuduudna Itoobiya la leedahay waa shuruudaha kale ee federaalka ku qoran Soomaaliya dowlad goboleed marka la diyaarinayo waa inay bad leedahay waa inay xuduudna leedahay sanaag badeedii habar yoonis iyo warsageli baa degan kuma jiraan maamulka Khaatumo kuma jiraan iyo habar jeclo dhinacan kale laascaanood gobolkii sool ma buuxo oo haaf bay haystaan magaaladii laascaanood haddii la leeyahay magaaladana dee magaalada waxa way 30 sano oo Somaliland baa dhisaysay oo shacabkeeda iyo dowladeeduba ay deganaayeen oo kuwaasna dee xuquuq bay leeyihiin waa in cod laga qaada oo aan dhulkoodii iyo guryahoodii waxooda la boobin in waa inay raalli ku ahaadaan inay meel wada aadaan sidaa daraaddeed maamul goboleedka SSC Khaatumo ma buuxinin shuruudihii Soomaaliya federaalka uu qaabilsanaa ee lagu aqbalayay nidaamka federaalka waxaa iyadana sharci jabin ah in Somaliland oo maamul goboleed dowladdu u aqoonsan tahay in shantii gobol ee Somaliland ka koobnayd ee Soomaaliya u aqoonsanayd in la kala dhantaalo oo gobol ka mid ah la kala jaro taasna waa sharci darro marka federaalka Soomaaliya sharcigiisa la raaco sidaa daraaddeed xildhibaanada Somaliland ku matalaya federaalka Soomaaliya oo ay ugu cadcadahay xildhibaan Gobson waa inay cajaladaas si fiican u dhageystaan sharciyan waa illegal waxa uu ra'iisul wasaaruhu hadda sameeyay iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda qaab qabiil ayay waxay u kala jarayaan gobol iyaga oo adeegsanaya beel taas oo ka soo horjeesta sharciga Soomaaliya haddii qaabkaas wax walba sharciga la waafajiyana waxaa imanaysa biyamaal iyo surre iyo mandalug beelaha direed oo dhan inay jubbooyinka iyo koonfur galbeedba ka soo go'aan oo galmudug beelaha direed ay dowlad gooniya noqdaan Puntland inay dowlad gooniya noqdaan Hirshabeelle in qabiil qabiil loo kala baxo oo xawaadle iyo beelaha hiiraan dega ay dowlad gooniya noqdaan jubbada dhexe shabeellada dhexe ay dowlad gooniya noqoto waxa qasmaya nidaamkii hore loo dhisay oo dhan baa in dib loo baabiyo noqonaysa sidaa daraaddeed waa sharci darro in la isticmaalo nidaamka beelaysan ee beesha dhulbahante looga dhigayo maamul goboleed iyada oo aan dhulkii shuruudaha buuxinin ama maamul SSC aan buuxinin taasi waa qofkii ugu dhacay qofkii ugu dhibsanaya ma aha wax qabiil ku saabsan waa wax sharci ku saabsan 4 beelood iyo badh ama 5 beelood baa Soomaaliya wax loo qaybsaday dir hal maamul goboleed baa loo aqoonsaday inay madaxweyne ka noqdeen oo ah Somaliland hadda si fiican dhageysta koonfurtii waa lagala dagaalamay ma deegaanadii direed oo dhan waxaa la hoosgeeyay digil iyo mirfle iyo hawiye iyo daarood baa la hoosgeeyay sidaa daraaddeed wixii la sameeyay oo dhan in dib loogu noqdo oo qolo walba ay maamul goboleed qabiil samaysato iyo inta dhisan inaan faraha lala gelin oo Somaliland faraha lagala baxo labadaa choice baa u yaala xasan sheekh maxamuud arrinkaas waa ogyahay faraha kulama geli karo waxa uu hadda wadaana waa hawl kale oo doorashadiisa iyo deegaan doorasho dib u soo doorasho iyo ra'iisul wasaare oo madax buuxin iyo
oo la yidhi matasho ma jirto iyo waxaas weeye inuu ka dul dabaasho qodobkaas xukuumadda Soomaaliya ee labada beelood ka kooban ee laascaanood ka ololeynaysa ee fadhida ra'iisul wasaare Xamse qaab beelaysan u hogaaminayo oo Dayana oo Asad Dayana oo ahaa maaragtay hogaamiye kooxeed Puntland dagaal ka riday laascaanoodna dagaalkii ka qayb galay Somaliland lagula dagaalamay laascaanood ka dhacay Asad Dayana oo rikoorkiisu ku jiro inuu dagaalo sokeeye kaga soo qayb galay Puntland iyo gobolka Sool oo kursigii taliska booliska ciidanka qaranka Soomaaliya lagu fadhiisiyay iyadoo vetin lagu samaynin inuu hadda u ololeynayo qaab qabiil oo waliba wax aan la qarinin markuu meesha ka degay idaacadaha iyo YouTube waxoo dhan ay ka buuxdo in Asad Dayana loo soo dhaweeyay as a hero ka qayb galay dagaalkii laascaanood hadda waa taliyihii booliska ee Soomaaliya ninka dagaalka laascaanood inuu ka qayb galay lagu soo dhaweynayo oo uu qabiil ahaan u taageeray beesha hadda qorshaha wadatay laascaanood fadhida taas oo ka soo horjeeda sharciga Soomaaliya ee federaalka qofkii dagaal sokeeye wadanka ka dhexrida ee gobollo wadanka ka mid ah dagaal ka qayb gala inuu xil qaran qabto waa ka mamnuuc sharciga Soomaaliya marka leeyahay taasna waa arrin kale oo dib looga xisaabtami doono haddii markaa lagu adkaysto ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada la socda ay ku adkaystaan in laascaanood maamul goboleed loo aqoonsado SSC Khaatumo la yidhaahdo oo aan buuxinin shuruudihii maamul goboleedka oo beelaha dhulkaas ay sheeganayaan oo dhan degan inay ka mid yihiin nidaamka iyo in goboladaas oo dhan aad gacanta ku hayso oo control tahay taa labadaa midna ma buuxin gobolka Sool oo haafa oo laascaanood iyo Taleex iyo Xuduna iyo tuulada degmada Buuhoodle oo Togdheer ka tirsan intaas maamul goboleed laguma noqon karo because hal gobol xitaa ma buuxinin sidaas daraadeed waxay ka soo horjeedaa waxa ka dhacay laascaanood sharciga Soomaaliya ee federaalka iyo sharciga maamul goboleedyada lagu aasaasayo labadaba ka soo horjeeda haddiise lagu adkaysto qorshaha labaad ee cutubkeena maanta caawa ka hadlaya haddii ay dowladda Soomaaliya ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa oo laba beelood oo Soomaaliyeed ka kooban meesha hawsha laga wadana ay tahay afartii beelood qaybsaday mid ka mid oo maamul goboleedka kaliya lahaayeen loo aqoonsay maamul goboleed haddii ay arrintu sidaa u dhacdo waxaa inoo muuqata marka beel walba oo ka mid ah beelaha labada beelood ee xukunka wadanka iyagu isku koobay inay saddex maamul goboleed samaysanayaan hawiye iyo daarood oo midna galmudug iyo Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir maamul goboleed ka wado dhinaca kalena Puntland iyo ninka Kismaayo joogo aan dhul haysanin dhulkana ka soo jeedin iyo halkan oo hadda laga wado haaf gobolka Sool micnaheedu waxa weeye laba beelood ayaa saddex maamul goboleed oo tartan samaysanaya hadday taasi dhacdo oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku adkaysto arrinkaas iyo ra'iisul wasaarihiisu maxaa la gudboon ra'iisul wasaare ku-xigeenka gudoomiyaha aqalka sare 17 xildhibaan ee aqalka sare iyo aqalka hoose isugu jira ee beelaha direed ama qowmiyadda direed ka soo jeeda ee Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya isku matala iyo shacabka qowmiyadda direed iyo madaxda direed ee federaalka Itoobiya iyo Djibouti iyo Somaliland madax ka haddii ay dhacdo in arrinka lagu adkaysto waxaan soo jeedinayaa in la dhiso laba maamul goboleed oo koonfurta Soomaaliya laga soo jaro oo midna uu yahay Udubland midna waqooyi bari yahay haddaan markaa kala faahfaahiyo Udubland wuxuu ka bilaabmayaa Muuri waa meel u jirta Afgooye dhowr iyo 20 kilomitir Muuri oo Biyomaal ku dego ilaa iyo Jamaame waxayna noqonayaan Udubland oo ka kooban laba gobol iyo badh hadda si fiican la dhigeysto oo laba gobol iyo badh labada gobol waxa weeye
gobolka shabeellada hoose oo buuxa oo complete ah iyo gobolka jubbada hoose oo kismaayo ka maqan tahay iyo gobolka jubbada dhexe sidaa daraaddeed maamul goboleedka Puntland shuruudihii horta uu buuxinayaa oo biyomaal baa dhulka dega iyo Mandalug iyo beelaha Soomaaliyeed ee kale ee iyaguna dhammaantood ku dulman dowladnimada Soomaaliya oo jareer weyne ka mid yahay oo ka mid yihiin sheekhaali ka mid tahay oo gaaljacal ka mid yihiin oo Soomaal oo dhan ka mid yahay beelahaas oo digil iyo mirifle ku jiraan oo maartay beesha digil ay ku jirto mirifle marka dhinaca kale loo eego ay u badan yihiin intaas oo beelood oo caasimadoodu tahay magaalada marka horta maamul goboleedkaas Puntland ama koonfur bari Soomaaliya ka waa dhisaynaa waa kow waa haddii beelbeel wax loo qaybsanayo oo beel walba ay rabto inay goonideeda u goodo beelaha kale ka goodo sida hadda laga wado Laascaanood waxaa la leeyahay isaaq annaga ma hoos tagayno oo nama xukumaya okay fair enough qabiilkaaga raac Puntland wixii dirdega waa laga soo jarayaa iyagana waxay noqonayaan waqooyi bari waana surre deegaan ballaaran bay ku leeyihiin halkaa hobyo waqooyigeeda laga bilaabo ilaa iyo xaafuun iyo bandarbeyle iyo hurdiya waa 3-4 gobol bay noqonayaan kaas waa nugaal buu qayb ka yahay oo mudug buu qayb ka yahay oo wuxuu ka yahay bari buu qayb ka yahay oo Gordofa waa 4 gobol oo Soomaaliyeed ayay haystaan oo maamul goboleed ka dhigan karaan waa la war soconaa Puntland inta laamiga un bay degan yihiin beesha harti wixii laamiga galbeedka ka xigay iyo laamigaas ay daadsan yihiin laba magaalo un bay ku leeyihiin dhinaca badda waa magaalo la wada dogo garaacad ah oo Salmaan Cabdulla iyo Cabdi Ciise degan yihiin iyo Aylo Ciise Maxamuud degan yihiin oo Salmaan Cabdulla degan dhulka la wada dogo in la kala qaybiyo secretariat loo qaybiyo anigu Puntland arrintaa lama rabo waana ogahay way ka haweyn yihiin laakiin nimanka beesha hadda meesha maraya ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo iyo beelaha Laascaanood degan waxa ay raadinayaan waana ay ku dhamaanaysaa haddii la ogolaado sidaa daraaddeed maamul goboleedka Puntland ama koonfur bari Soomaaliya iyo maamul goboleedka waqooyi bari Soomaaliya oo surra labadaa waa diyaarinaynaa meel kasta oo surra dego ciidanna waa la geenayaa maamul goboleed buuxana waa badna waa leeyihin barina waa leeyihin waana in ka badan 1 kilomitir bay degaan halkaa waxaan kaga hadlayaa waa haddii qaabka secretariat wax loo wada lagu adkaysto qodobka saddexaad ee raba inaan ka hadlo waxa weeye waajibaadka saaran maamulka duulaanka lagu yahay ama dowladda duulaanka lagu yahay dowlad madax bannaan bay isu yaqaanaan Somaliland laakiin Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay autonomous region inuu yahay oo hal maamul goboleed oo federaalka Soomaaliya ah oo xildhibaano ay Muqdisho u fadhiyaan baa loo aqoonsay aqalka sarana kule 11 xildhibaan sidaa daraaddeed haddii dowlad goboleedkaas dowladda federaalka Soomaaliya u aqoonsan tahay dowlad goboleed Soomaaliyeed haddii qaab qabiil loo burburinayo maxaa la gudboon Somaliland waa awood military iyo awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale oo ay madax ka yihiin beelaha direed qaabka koonfurta looga fakirayo marka la eego oo duulaan hadda lagu soo qaaday waxaa la gudboon inay maal geliyaan oo taageeraan oo awood siiyaan walaalahooda dhulka goglan ee qowmiyadda direed anigu aan madaxda u ahay oo iyagu iska leh 8 gobol ku leh koonfurta magaalooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliyana iyagu aasaasay degan magaalada Muqdisho ay ka mid tahay gobolka Banaadir magacoodu ku qoray Banaadir waa binaa dir haddii la istiriyo oo la codeeyo waxa xaq yeelanaya oo beesha kuwaad noqonaysa qowmiyadda direed beesha labaad bay hawiye noqonaya beesha haddii aan xoog iyo dowladda la adeegsanaynin marka arrimaha qabaa'ilka waxay dhibaato weyn u keenaysaa beesha hawiye ee ku naaloonaysa dowladnimada iyo caasimadda iyo wax aanay keligood lahayn maanta gacanta ku haysta waxaad horboodaysaa fiqi iyo xasan macalinow waa waxa aan akhrinayo inay idinku dambaysaan
waana laga xisaabtami doonaa waajibaadka markaa somaliland horyaal waxa weeye dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo militariga iyo dad ahaanba inaa u garab istaagtaan qurba joog iyo xukuumadba iyo dadka shacabka ee somaliland waa inay garab istaagaan walaalahood qowmiyadda direed ee koonfurta soomaaliya degan ee garabkooda ahaa markii ay dagaaladu ku furraayeen ee af iyo adilba la garab taagnaa taas waa kow waa waajibka saaran somaliland waxaan halkan markaa rabaa inaan kusoo bandhigo waajibaadka oo qodobkayga afraad ah waajibaadka saaran xildhibaanada iyo wasiirada dowladda xukuumadda soomaaliya ku jira ee hadda kasoo horjeestay uu ka mid yahay saalax oo uu ku jiro maareeye oo uu ku jiro ninka la yidhaahdo oo gabadha gobsa ku jirto oo xildhibaana iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo 7 xildhibaan ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ku jira waajib buura ah oo xaq ah baa maanta wuxuu ka saaran yahay hal maamul goboleed baa dowladda federaalka u aqoonsanay waqooyiga oo ay qowmiyadda direed ama dir madax ka ahaayeen waa hal maamul goboleedkii baa duulaan uga idinkaana meesha ku matala haddii sharciga soomaaliya uu yahay sharciga aa ku shaqaynaysaan waxaa la rabaa waraaqaha aa haysataan inaad dowladda hor dhigtaan xasan iyo xamsana aad la xisaabtataan labada wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibaddana waa in impeachment lagu sameeyaa baarlamaanka dhexdiisa xilka qaadis lagu sameeyaa lala xisaabtama ma beelay u shaqeeyaan mise ummadda soomaaliyeed bay u shaqeeyaan arrinkaas waa very important wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya beelaha soomaaliyeed dhexdhexaadu ma aha mana matalo xaashi wasiirka arrimaha dibaddana beelaha soomaaliyeed dhexdhexaadu ma aha dagaal qabiil buu ku jiraa waa in lala xisaabtamaa oo impeachment la keena arrintaana waxaa u xil saaran xildhibaan gobson ayaa u xilsaa inay baarlamaanka soomaaliya keento mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha saddexdaaba mooshin waa in laga keena waa haddii aa u shaqaysaan oo matashaan ummadda direed ee soomaaliya ku nool waajibka idi saaran wey gabagabadii waxaa la dardaarmayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ee qowmiyadda direed ku aftirsada ee geeska africa ku nool iyo dhammaan daafaha dunida ku nool waxaa la joogaa stagekii kala guurka soomaaliya dowladnimadeedii baa lagu jiraa waa sanadka ugu dambeeya beesha daarood sanadkaas waxay isku daydaa in qalinka soomaaliya ay ku boobto dhul iyo dadba waana waxa ay hadda wado hawiyana waa ku taageeraayo isagaa dusha ku sitaa beesha daarood siyaasiyintooda iyagaa magacaaba iyagaa xilalka siiya iyagaa wax walba u ogol iyagaa ilaaliya xamar gudaheedana waa la ogyahay qowmiyadda direed cidna ugama awood badna ama argagixisaha lagu tilmaamo ama niman iska maaragtay mushaar iska qaato oo dowladda ka mid ah laydinku tilmaamo oo way idi caayaan waan ogahay laakiin la xisaabtama miiska u garaaca tusa waxa socda inayna shaqaynayn qof kasta oo qowmiyadda direed ku aftirsado geeska africa ku nool xilligii waxaa la joogaa lagu dhawaaqi lahaa dowladnimadii qowmiyadda direed ee geeska africa midayn lahayd ee geeska africa soomaaliya ka tari lahayd haddii sectarian iyo qabaa'il ay nimankan qalinkii soomaaliya ku samaysanayaan innagana waa inaan cid waloo direed somaliland ha noqoto federaalka etoobiya nimanka jooga ee abiye iyo aadan faarax iyo axmed shida iyo ay ka mid yihiin ha noqoto ninkan odayga ah ee 20 dowladood isuu keenay jasiiradiisii yarayd ee aan garanaynin inuu taageerayo maalin walba madaxa ku xirtay jawaanka ha noqoto ismaaciil cumar geele waxaa laydinka rabaa waajib idinku ah in aad taageertaan shacabka direed ee koonfurta soomaaliya ku dulman ee majority-ga ah ee waamo iyo waaqdhoobay ama jubbooyinka iyo shabeellooyinka iyo galmudug iyo puntland intaba dega ee waqooyi bari soomaaliya iyo waqooyi koonfur bari soomaaliya maamuladooda aanu samaynin waxaan salaamayaa dhammaan shacabkaas
iyo siyaasiyiintooda meel kastay joogaan waxaan leeyahay wada shaqayn fiican wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu